waxaan ka salaamayaa dhammaan shacbiga reer Somaliland. waxaan jeclahay dhowr qodob oo saddex qodob inaan midba wax ka idhaahdo. idoo kulamadii aan la yeelanay kulankii ugu dambeeyey madaxweyne Muuse Biixi iyo kulankii ka horreeyeyba arrinta ugu muhiimsan oo kala hadalnay ama isagu noogu yeedhay waxay arrinta doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka iyo diiwaangelinta. markaan soo koobo waxaan isla qaadanay in doorashooyinkii la qabto waktigoodii oo ku aadan bisha 3aad 2019 wixii qabiye ka horeeyana la dhamaystiro oo ay ka mid tahay diiwaangelintu, ay ka mid tahay wixii qabiye shuruuca iyo dhammaan wixii kale qabiyooyina. waxaa horeyn doonta diiwaangelinta oo ay suurtagal tahay in la bilaabo si dhaqso ah ama bisha 4aad ama wixii ka dambeeya. waxaa la diiwaangelin doonaa dhammaan dadkii waktigii doorashada hore aanay u suurtogelin inay isdiiwaangeliyaan. waxaa la diiwaangelin doonaa dhammaan dadkii qaangaadhay xilligaas. waxaa kaararkoodii la siin doonaa dadkii aanay u suurtogelin inay qaataan kaararkooda oo ku dhow 170,000. waxaa loo bedeli doonaa wixii kaararka ka xumaadeen ama ay ka lumeen. waxaa loo bedeli doonaa dadkii raba inay goobtii ay ka codeeyeen ay ka bedeshaan ama kasoo guureen sababo kale hadday jiraan. sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqayaa shacbiga reer Somaliland gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani inay u diyaargaroobaan diiwaangelinta. sidoo kale shacbiga reer Somaliland waxaan ugu baaqayaa inay u diyaargaroobaan doorashooyinka isa saaran ee golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada. waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha xisbiga dhammaantood ee heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmada inay ka qayb waa shirkad saamiileya. wasaaradda maaliyaddana waxaa ugu qoran halkan inay tahay mid ka mid ah saamiilayaasha shirkadda. saamiilayaasha kale ee aan wasaaradda maaliyadda hayni ma cadda. lacagta lagu aasaasay shirkadda sida sharcigeeda ku qoran waa 5 milyan. 50 kun oo qura la bixiyey. 50 kaana cidda bixisay ma cadda. ma wasiirkii iyo safiirkaa bixiyey, wasaaradda maaliyadda bixisay, cidda lacagtaa bixisay lagu aasaasay ee lagu shubay hadda ma cadda. arrintaasi waa arrin ka soo horjeeda qawaaniinta iyo sharciga Somaliland. xukuumaddu hadday shirkad samaynayso ama hay'ad samaynayso marka hore dee waa inay sharcigeedii samaysaa sidii walba dhici jirtay. dabeedna waynu jiraa go-aan xukuumadeed oo ka horeeya oo sheegaya in la sameeyey hawshaas. taasina may dhicin. waxaa kaloo yaab leh waxaa la yidhi wasiirka wasaaradda maaliyadda hoos timaadaayoo wasiirka cusub ma oga. oo siduu sheegay wasiirka arrimaha dibaddu shalay ama daraatu ka brief gareeyey jiritaanka shirkaddaas. xilkii wuxuu la wareegayna de waa garanaysaana wasiirku wuxuu la wareegay 60 maalmood ka hor. markaa wasiirkii hore waxaa isweydiin leh xilkii hayay maqaar buu weli hayaa aanu soo wareejin. wasiirka cusub xilkii wasaaradda maqaar baan lagu wareejin. Soomaalidu waxay odhan jirtay mararka qaarkood ma buuri baa laga kareeyey wasiirka cusub. waxaa kaloo yaab leh in wasiirkii hore ee ganacsiga iyo maalgashigu
oo isna yidhi wax waran ka hayay xitaa maqalkeeda waan maqal waxaa kaloo yaab leh wasiirkii maalgashiga Somaliland ama wasaaradda maalgashigu inaanay iyana war u haynin shirkaddan waxaa madax ka ah ama aasaasyaal ka ah wasiirkii safiirkii iyo xogayihii safaaradda oo ah milkiilayaasha sida ku cad shirkaddan waxaanay ku dareen sida mudane baashi sheegay in madaxweyne muuse biixi uu la og yahay kagana wakiilihii madaxweyneha waxaan u soo jeedinaynaa inuu shacbiga arrintaa warcad ka siiyo shirkaddani waxaanu aragnaa weel ama haan ama dhiil loogu talagalay in lagu lunsado hantida ummaddan ay abaaraha iyo sicir bararku halakeeyeen waxaanu aragnaa inay tahay shirkaddani tuugo sharciyeysan oo looga faa'iidaysanayo hantida ummadda iyo dhaqaalaha kooban ee Somaliland waxaanu aragnaa awooddii shacbiga ay mas-uuliyiintaasi u hayeen ay u gimanaayeen oo ay si khaldan u adeegsadeen waxay noqon kartaa khiyaamo qaran ibraahim gadle wuxuu yidhi tuugu waa isqarin jiray tuuladu halkuu ka qaatana tahaan buu ka guuraa toddobaadkan xaajow kuwa tiriigsitaa soo baxay kuwa tiriigsitaa yimi waxaan u soo jeedinaynaa mas-uuliyiintaas wasiirka iyo safiirka iyo xogayahaba maadaama ay yihiin xilal qaranka u hayaan kale oo fadeexaddaa weyne soo baxday inay iyagu maanta iscasilaan berri maaha inay maanta iscasilaan waxaan kaloo soo jeedinayna haddaan iscasilin in madaxweynuhu xilka ka qaado madaxweynuhuna uu caddeeyo ummadda shirkaddan iyo wuxuu ka og yahay iyo inuu wakiishay mas-uuliyiintaas intaba waxaa kaloo la yaab lahayd in sababta shirkadda loo sameeyey markay sharxayeen labada mas-uul ay yidhaahdeen Somaliland lama ictiraafin sidaa daraaddeed baa loo sameeyey shirkaddan inay fududeyso maalgashiga Somaliland labada agaasime ee ku qoran hadda shirkaddu mid waa wasiirkii arrimaha dibadda ee Somaliland midna waa safiirkii Somaliland ee Imaaraadka ictiraafkii ku keeni waayeen wasiirnimada iyo safiirnimada ma shirkada ay sameynayeen bay ku keenayaan midan la tahay waxaan jecelahay halkaa kaga hadho qodobka saddexaad runtii isna waa qodob yaab leh xukuumadda kulmiye waxay caadaysatay sharciga inay ku tumato inay dastuurka ku tumato waxaa ka warqabteen kadib qayb ka tahay maalgashiga safiirka ugu beenay wuxuu sheegay in kadib qayb ka marka labada